بدلانay waa mahadsantihiin waanu idin aragnaa labaatan inta tirteen shan madaxweyne oo kala dambeeyay ilmaadeer bay ahaayeen waxaan la yaabay madaxweyne kastiba markii waqtigiisu dhamaado madaxweynaha kale waxba kuma wareejiyo hubka iyo gaadiidka iyo dhaqaalaha gurigii uu ka dhashay buu geeyaa Abdullahi Yusuf baa ugu horeeyay wuxuu geeyay xamar Abdullahi Yusuf baa ugu fiicnaa wuxuu geeyay xamar magaalo madaxdii uu ku xoreeyay fila Soomaaliya buu ciidankii Puntland ku xoreeyay ninkaas waa mahadsanaa cadda ku xigay cadda maalintii lagala wareeyay hubkii iyo ciidankii wuxuu geeyay Qardho haddana Qardhay joogaan magac bayna leeyihiin waxa ku xigay Faroole la garow uu geeyay magac bay leeyihiin oo waa la yaqaan waa cashuurtii iyo hubkii madaxnimada lagu helay waa kuwa garow jooga oo Qardho jooga Cabdiwali baa ka dambeeyay gaalka ayuu geeyay taa idinka marxaanti ka haddana deli baa beerinaya oo isaguna waxay la tahay Qardho iyo halkii caddu ka daba geenaya bane diktor alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaah baa mahadle xafladatan dadka qiimaha leh qof walba maqaamkiisaan ku salaamaya waxaana leeyahay salaanta islaamkaan ku salaamaya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh xafladan waxa lagu taageersan yahay 18 guuradii dawladda maakharta aad maqashaan waxa weeye dadkii maakhar macnaheedu waxa weeye xilligii hore dadkii ugu ulbaxsanaa dadka Soomaaliya degan bay ahaayeen siyaasay maakhar kula baxeen dawlado badan baa u kala dambeeyay dadkii ugu horeeyay ninkii ugu horeeyay dawladda ka aasaasay waxa la oran jiray Ali Dable waxa ku xigay dawladii madaxda ka ah Sultan Maxamuud ciidankii gaarhayay lahaayeen intii ka dambeysay waxa dhashay dawlado calan baan dadku qaatay xilligaas ilaa xilliga dawladdaas aynu ahayn dawladii Cabdirashiid wax yar bay jirtay waxa ku xigtay dawladii Tooradda ahayd oo Siyaad Barre markaas aynu calankeenii waxaynu dhiganay meel dawladii way jabtay oo waxa ku dagaal ahliya dhacay dabadeedna waxaynu dhisnay dawladii Puntland dawladda Puntland la yiraahdo dadkii wax ka dhistay baynu ahayn oo waliba lagu aasaasay magaalada Xingalool degmada aynu joogno baa lagu aasaasay inta ay isimadu isugu yimaadeen dabadeedna dawladdaas la dhisay dawladda aad iyo aad dadka qaarkii baa ku liibaanay waxa ay u kala dambeeyay shan madaxweyne oo ilmaadeer baa u kala dambeeyay shanta madaxweyne ilmaadeer bay ahaayeen inana waynu garab taagnay nafac badan waxaynu ku qabnay waynu garanaynaa waynu taageersanay haddana waa taageersanahay ninka ku ladanina waa walaalkeen waxaynu leenahay iyada lagu dheedo ha jirto dawladda maakharna waxaanu leenahay madaxweynaheedii ka yahay madaxweyne ku xigeenkiisiina ka yahay wasiirade agaasimayaal ciidan leh waxaan leenahay ha noolaato waxaan leeyahay marka hadalkayga ujeedadiisu waxa weeye taageeraynu dawladana taageersanahay waxaynu la rabnaa inaynu dadka la sinaano walaalaheena Puntland walaalkeen baa ku ladnaaday waxay ku noqdeen dawlad waxay ku heleen dhaqaale waxay ku heleen waxyaabo badan dekada hore oo dawladii dekada Boosaaso dawladii Siyaad Barre samaysay intii ka dambeysay dhaqaalihii ay ka heleen iyo horumarkii ay gaadheen dekada labaad bay ku samaysteen waa u mahad celinaynaa horumarka ay gaadheen haddaynu eegnay waxa ka dambeysay dawladda la yiraahdo SSC oo lagu wada tabcay iyadana waynu bogaadinaynaa teenana waxa weeye haddaynu madaxweyne ku xigeen u samaysanay ciidankiina waa dhisan yahay waxaynu rabnaa inaynu horumarino waxaynu rabnaa inaynu waddankeena dhisano inagoo aan cidna ku xumaynayn dawladihii walaalaheena oo dhismayna aan xumaynayn waliba waxaynu ka baahan yihiin ku taageerayna baynu marka danteena u soo jeesanaynaa waxa weeye marka waxaan leeyahay dawladda maakhar ha jirto ha shaqayso inana waa garab taaganahay boqolkiiba boqol madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeen kale waxaanu leenahay waanu ku salaamaynaa dawladdiina waa taageeradeedu annaga aan muujinay haddii aanu nahay degmada Xingalool haddaanu nahay Xingalool haddaanu nahay taageeradayadii waad aragtaan
taageeradaanu waxaanu rabnaa dawladnimaanu rabnaa horumar baanu rabnaa Puntlandna waxaan leeyahay walaalaha yaa tihiin waanu idin garab taagnaanahay waana idin garab taagnaan jiray annaguna hadda waxaanu rabnaa inaanu waddanka iyaga horumarino wixii aad naga hagrateen oo nala soo gaadhi weydeen waxaanu rabnaa inaanu annagu qabsanno waxaanu rabnaa sidiina inaanu dekada helno waxaanu rabnaa in sidiina aanu dekada helno waxaanu rabnaa ardaydayada inaanu waxbarasho bilaasha u helno waxaanu rabnaa inaanu wadooyin samaysanno waxaanu rabnaa caalamka inaanu wax la qabsanno maandhaydka iyagana annaga isu hayno waana samaysannay waxaan leenahay walaalayaal marti cidna uma ihin inaynu horu marro dawladda Puntland waxaynu ku leenahay tiradeeda waa garanaynaa waxaynu ku leenahay laba wasiir iyo hal agaasime kuma filla waxaan leenahay marka Puntland waad mahadsantihiin waanu idin aragnaa intaad jirteen 5 madaxweyne oo kala dambeeyay ilmaadeer bay ahaayeen waxaan la yaabay madaxweyne kastiba markii waqtigiisu dhamaado madaxweynaha kale waxba kuma wareejiyo hubka iyo gaadiidka iyo dhaqaalaha gurigii uu ka dhashay buu geeyaa Cabdullaahi Yuusuf baa ugu horeeyay wuxuu geeyay xamar Cabdullaahi Yuusuf baa ugu fiicnaa wuxuu geeyay xamar magaalo madaxdii buu ku xoreeyay fila Soomaaliya buu ciidankii Puntland ku xoreeyay ninkaas waa mahadsanaa cadda ku xigay cadda maalintii lagala wareeyay hubkii iyo ciidankii wuxuu geeyay qardho haddana qardhay joogaan magac bayna leeyihiin waxa ku xigay faroole la garow uu geeyay magac bay leeyihiin waa la yaqaan waa cashuurtii iyo hubkii madaxnimada lagu helay waa kuwa garow jooga oo qardho jooga Cabdiwali baa ka dambeeyay gaalka ayuu geeyay taa idinka marxaanti ka haddana deni baa biirinaya oo isaguna waxay la tahay qardho iyo halkii caddu ka daba geenaya annagu meel weli wax ma geysan mar haddaanan xukunkii noo suuroobi waayey Puntland inaanu mar madaxweyne ka noqonno oo magaalooyinka iyaga wax u geysano oo aanu maaragtay walaalkayo haddii laba walaalaahay walaalayeen mid guursado midna gobol noqdo waxa weeye ka gobolka noqday laangaab buu noqdo annaguna dawlad baanu samaysanay nagu taageera abaal baanu idinku leenahay waxaan leeyahay Puntland waad mahadsantihiin tacabkii aanu idin gashanay mid la mid aanu marti idinka nahay abaalna waama iyo inaad maalin celisa abaalka iyagii baanu idinka rabnaa SSC waxaan leeyahay jira oo jooga maamul cusub baa tihiin xukunkiina waa cusub yahay waxa laale wixii taageerana waa isla garab taaganahay waynu tashan doonaa walaalaha Puntlandna taageeraynu ka rabnaa annaguna dawladdiinii markii ay dhalatay xamar ay tagtay oo la ixtiraafay waanu ku faraxnay annaguna xamar tagnay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarahana la soo heshiinay talana way isugu iman doonaa waad mahadsantihiin khayr baan idin